soo dhawaada saaxiibayaal, waxaan ahay Abdifataax Durdur. halkaad nagala socotaan waa channelkeena Durdur Podcast. Maanta waxaan si qoto dheer aan uga hadli doonaa xaaladda dhalinyarada Soomaaliyeed, gaar ahaan shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta, sababaha keena, saameynta ay leedahay iyo halka xal laga raadin karo. haddii aad horey nala joogtay nala joog, haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir. aragtidaadana waa inoo muhiim, qaybta commentiga ah inoogu reeb. waa hagaag. Soomaaliya waa dal dhalinyaro badan. in ka badan kala bar shacabka Soomaaliyeed waa dhalinyaro, kuwaas oo leh rajo, karti iyo awood ay dalkooda wax ugu qaban karaan. laakiin dhalinyaradan inta badan riyadoodu waxay ku xayiran tahay shaqo la'aan joogto ah. maalin kasta waxaa qalin jabiya arday jaamacadeed iyo kuwa bartay xirfado, balse marka ay suuqa shaqada galaan waxay ugu tagaan albaabo xiran. shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed waa mid aad u daran. magaalo iyo meel walba waa laga dareemayaa. dhalinyaro aqoon leh ayaa mararka qaar ku shaqeeya shaqooyin aan aqoontooda la jaan qaadi karin, ama gebi ahaanba shaqo la'aan ku nool. shaqooyinka jira badankood waa kuwa aan rasmi ahayn, mushaar yar, kana maqan mustaqbal iyo xasilooni. haddaba su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay, maxaa sababay shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta? dhowr qodob ayaa loo sababeynayaa waxyaabaha keeni kara shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta. midda koowaad waa waxbarashada la bixiyo marar badan ma waafaqsana baahida suuqa shaqada. marka labaad waa dhaqaalaha dalkeena oo ah mid daciif ah. dalka ma lahan warshado waaweyn ama shirkado shaqo abuur ah. marka saddexaad waa amni daro iyo khilaafaad siyaasadeed oo joogto ah. taas ayaan carqalad ku noqotay maalgashi iyo horumar. sidoo kale musuqmaasuqa iyo eexda oo iyaduna qayb ka ah sababaha keeni kara shaqo la'aanta baahsan ee dalka ka jirta, iyadoo mararka qaar shaqooyinka lagu kala helo qabiil iyo xidhiidh. haddaba shaqo la'aantaasi baahsan saameyn intee la-eg ay dhalinyaradu ku yeelanaysaa? shaqo la'aantu waxay dhalinyaradu gelisaa rajo beel. qaar waxay u tahriibaan dalal shisheeye iyagoo naftooda halis gelinaya. qaar kale waxay u leexdaan maandooriye ama falal amni daro. waxaa sidoo kale jira niyadjab, kalsooni daro iyo burbur ku yimaada qoysas, taas oo saameyn weyn ku leh bulshada guud ahaan. waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid, haddii la ogyahay sababta, saameyntu la garanayo, maxaa xalku uu noqon karaa? si dhibaatada loo yareeyo, waxaa muhiim ah in waxbarashada lagu saleeyo xirfado la taaban karo, in dhalinyarada lagu dhiirgeliyo ganacsiyada yaryar, in la helo amni iyo xasilooni siyaasadeed, in shaqo qorista laga dhigo mid cadaalad ah, in dhalinyarada la siiyo kalsooni iyo fursad. dhalinyarada Soomaaliyeed haddii la siiyo fursad, iyagaa noqon kara kuwa dalkooda dhisa. gabagabadii, shaqo la'aanta dhalinyarada Soomaaliyeed waa dhibaato weyn, balse xalkeedu waa suurtogal. mustaqbalka Soomaaliya wuxuu ku xiran yahay sida aan maanta ula macaamilno dhalinyaradeena. waad ku mahadsan tahay la socodkaaga.